asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waa isniin 21 bisha afraad ee sanadka 2025. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku wadaago gudoomiyaha gobolka Arkansas oo saxiixday heshiiskii luqadda Ingiriiska ah ee quseynayay wadayaasha gawaarida waaweyn ee taraagyada ah. sidoo kalena maxkamadda sare ayaa habeennimadii Sabtidii saqdi dhexe waxa ay joojisay amar uu maamulka Trump doonayay in dad ka soo jeeda wadanka Venezuela uu ugu masaafuriyo wadanka El Salvador isagoo adeegsanaya sharcigii Alien Enemy Act. arrintaasi oo xiisada hadda maxkamadda sare iyo maamulka Trump u dhaxaysa ay cirka isku sii shareereysana sidoo kale waan idin la wadaagaya, balse marka hore soo dhawaada. toddobaad ka hor idin sheegay sharci luqadda Ingiriiska ay qasab tahay gobolka Arkansas oo kamid ah gobolada Mareykanka, kaasi oo quseynaya wadayaasha gawaarida waaweyn ee taraagyada ah ee xamuulka isaga kala gudbiya gobolada Mareykanka in baarlamaanka gobolkaasi Arkansas ay meel mariyeen. haddaba gudoomiyaha gobolkaasi Arkansas Sarah Huckabee Sanders ayaa isniintii hore oo 14 bisha ahayd sharcigaasi ay qasab ay tahay qofkii in luqadda Ingiriiska uu yaqaano in ay saxiixday oo gabi ahaanba ay qalinka ku duugtay. hadda waa sharci, waxaana luqadda Ingiriiska ay qasab tahay qofku in uu yaqaano haddii gobolkaasi Arkansas isagoo taraag wata uu dhex marayo. waxaa la leeyahay sidee suuragal ku tahay qof luqadda aan aqoonin inuu taraag wado. dad fara badan ayaa jira oo luqaddu ay ku adag tahay leesinka soo qaatay gawaaridaasina wada. marka aad gaarigaasi wadayso waa sayniska buundooyinka ku yaala, kuwa wadooyinka dhinacyaheeda ku yaala ayaa sidoo kale waxay muhiim tahay inaad aqrin karto. marka haddii adigoo gobolka Arkansas dhex maraya uu boolisku istaajiyo amaba weigh station lagugu istaajiyo goobaha gawaarida culeyskooda lagu miisaamo oo luqadii Ingiriiska aad communication ku sameyn wayso, su'aalaha lagu weydiinayo aad ka jawaabi wayso, macnaheedu waxay tahay in lagu ganaaxayo marka ugu horeysa $5,000 haddii mar labaad lagu qabtana $1,000 lagu ganaaxayo. marka arrintaasi waa arrin muhiima oo qofku micnaheedu waxa ay tahay in general public dadka shacabka communication uu la sameyn karo, sidoo kalena uu fahmi karo wadooyinka ama sayniska calaamadaha ku yaala traffic signiska oo signalska. waliba waxaa jira boorar waaweyn oo haddii cimiladu ay xun yihiin, haddii shil hortaada uu ka dhacay ay ku soo qormayso. marka haddii aadan aqrin karin calaamadahaasi micnaheedu waxay tahay ma wadi kartid gaarigaasi. sidoo kalena qofku waa in uu ka jawaabi karo haddii su'aalo la weydiiyo. sidoo kalena waxaa jirta haddii qoraal samee la yiraahdo oo form inta loo dhiibo buuxi la yiraahdo reportkan buuxi, in sidoo kale uu buuxin karo. marka arrintaasi waa qasab. Soomaali fara badan jiro luqaddu ay ku adag tahay. Soomaali oo kaliyana ma ahan, dad fara badan oo wadamo kala duwan ka yimid oo gawaaridaasi wada oo waxaa jira luqadda Ingiriiska ay ku adag tahay. haddana gobollo kale ayaa ka fikiraya. hadda waa Yomi oo kale waan arkayay, gobollo kalena isla sharcigan ayay ka fikirayaan. marka gudoomiyaha gobolka Arkansas Sarah Huckabee Sanders sharcigaasi qalinka ayay ku duugtay, waxaana la doonayaa badqabka because wadooyinka kaliya ma maraysid, baabuur fara badan ayaa kula maraysa, marka dhibaato ayaad geysan kartaa. shil horeyna waa ay u dhacday, dad fara badan ayaa shil ay sababeen wadayaasha gawaarida waaweyn ee taraagyada oo luqadda Ingiriiska aan aqoonin ay sababeen, dad fara badan ay ku geeriyoodeen. sharcigaasi oo nambarkiisu yahay HB 1745 ayaa gudoomiyaha gobolka Arkansas ay qalinka ku duugtay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka gobolka Arkansas ay meel mariyeen. marka arrintaasi ogow, gobolkaasi Arkansas haddii aad dhex marayso oo boolis uu ku istaajiyo ama weigh station lagugu istaajiyo meesha gawaarida miisaanka ama culeyska ay wadaan lagu miisaamo oo aad communication sargaalka ku istaajiyo aad la sameyn wayso, micnaheedu waxay tahay marka ugu horeysa $5,000 ayaa lagu ganaaxayaa, mar labaad haddii lagu qabtana $1,000 ayaa lagu ganaaxaya. arrintaas waxaan filayaa inay tahay arrin muhiim oo loo baahan yahay wadayaasha gawaarida gawaarida waaweyn ee taraagyada inay iska ogaadaan. dhinaca kale, xiisada maamulka Trump iyo maxkamadda sare u dhaxaysa ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii maxkamadda sare Sabtidii ay saqdii dhexe joojisay amar uu maamulka Trump uu doonayay in wadanka uga saaro soo galooti sharci la'aan ah oo wadanka Venezuela ka soo jeeda. uu yiri waxay ka tirsan yihiin kooxaha gaangiska ee Trinidad iyo Tobago oo TDA loo soo gaabiyo. inta badan dadkaasi taatuyada ku qoran ayaa lagu soo qabtay. marka waxaa jirtay sharciga Alien Enemy Act
markii uu bishii March ee hore 15keedii Trump dad ka badan 200 uu ku masaafuriyay in dad aan waxba galabsan oo hadda ninkii Kilmer Abrego Garcia uu ka mid yahay lagu masaafuriyay iyo dad kale ciyaaryahan hore Venezuela bununiga uga ciyaari jiray nin kale oo make up ka sameyn jiray oo aan wax gaangisa shaqo ku lahayn ayaa lagu masaafuriyay marka Trump mar kale ayuu doonayay inuu sharcigaasi adeegsado 7 bishan ayaa maxkamadda sare waxa ay maamulka Trump tiri sharcigaasi waad adeegsan kartaa dadna waad ku masaafurin kartaa laakiin shuruud ayaa lagu xiray waxa la yiri dadkaasi waa inaad fursad u siisaa in garsoore maxkamada oo immigration ay hortagaan isla markaana ay isdifaacaan marka dadka sharcigan loo adeegsanayo dad processkii la mariyay ma ahan oo garsoore maxkamada immigration la horgeeyay waa la soo qabtay xarun ICE ay leedahay ayaa lagu xiray kadibna waa la masaafurinaya haddaba marka habeennimadii sabtidii waliba kowdii habeenimo ayaa amarkan maxkamadda sare uu ka soo baxay waxaana maxkamadda sare u gudbiyay the American Civil Liberty Union oo jimcihii maxkamado kala duwan codsiyadan u diray oo dhahaya dadkaasi ayaa maamulka Trump isagoo sharciga Alien Enemy Act 1978 oo qarnigii 18aad ah ayuu doonaya inuu ku masaafuriyo marka maxkamadda sare arrintii waa ay soo faragelisay maadaama la og yahay 15kii bishii hore dadkii oo El Salvador u masaafuriyay Trump isagoo Alien Enemy Act isticmaalaya in garsoore James Boasberg uu yiraahdo la soo celiyo diyaaradahaasi maamulka Trumpna uu iska dhiga tiray oo diyaaradihii El Salvador ay ka tagteen arrintaasina hadda garsooraha uu leeyahay waan kula xisaabtamaya maamulka Trump oo amar garsoore maxkamadeed ayay jabiyeen haddaba marka waxaad arkaysaa baskan idin muuqda in 28 qof oo soo galooti sharci darro ah wadanka Venezuela ka yimid ay saarnaayeen waxa loo sii wadayba airportka diyaaradii laga saari lahaa markii amarkan uu soo baxay 18 gaari ayaana galbinaya oo booliska sida aragtaan baskaasi ayaa waday marka dib ayaa loo soo celiyo meeshii lagu hayay ku xirnaayeen ayaa lagu soo celiyay maadaama amarka maxkamadda sare uu soo baxay Trump hadda ayaa amar garsoore ay jabiyeen maxkamadda ugu socotaa marka mar kale ma doonayaan inay jabiyaan sidaas darteed dib ayaa loogu soo celiyay goobtii haweeney ninkeeda uu ku jiray ayaa waxa ay leedahay mana loo wadin wadankeena Venezuela ayuu yiri oo El Salvador ayaana loo waday jimcihii hadda la soo dhaafayna waa sidoo kale garsoore federaal ah oo ku yiri maamulka Trump dadka aad masaafurinayso wadan aan wadankoodii ahayn oo wadan saddexaad ah uma masaafurin kartid waa tii la yiri marka dib ayaa loo soo celiyay oo hadda xabsigii ayay ku jiraan maamulka Trump xitaa arrintaasi racfaan ayay ka qaateen maxkamada kale ay dacwadaasi u gudbiyeen marka 7 garsoore 9 garsoore maxkamadda sare 7 kamid ah ayaa waxay yiraahdeen dadkaasi lama masaafurin karo labana waa ay diideen labada diiday waxay kala yihiin Clarence Thomas iyo waliba Samuel Alito halka 7 ogolaatayna ay kala yihiin Ketanji Brown Jackson Amy Coney Barrett John Roberts Elena Kagan Sonia Sotomayor Brett Kavanaugh iyo Neil Gorsuch 7daas waxay yiraahdeen dadkaasi lama masaafurin karo marka maxkamadda sare waxay ku amartay hadda maamulka Trump dadkaasi ilaa iyo amar maxkamadeed uu soo baxo ma masaafurin kartaan oo xabsigaasi waa inay ku sii jiraan marka arrintaasina waxay tahay arrin hadda ay leeyihiin the American Civil Liberty Union oo dacwadan ka gudbisay maamulka Trump waxay leeyihiin maamulka Trump hadda uma hoggaansamaya amarkii maxkamadda ka soo baxay oo iska dhiga tiraya waxana uu doonaya inuu dadkaasi mar kale uu masaafuriyo Trump sida arkaysaan sabti iyo axad ayay ku aadinayaan masaafurinta xilligaasi oo xilliye fasaxa wadankana 15kii bishii horena saasoo kale sabti ayay dadkaasi masaafuriyeen sharciga Alien Enemy Act iyagoo adeegsanaya haddana sabtidii la soo dhaafay ayaa ay masaafuriyeen oo amarkan maxkamaddu sare ay soo saartay leeyihiin dadkaasi lama masaafurin karo marka maalmahaasi ayay ku aadinayaan iyadoo sidoo kalena hadda ay dagaalka u dhaxeeya maxkamadda sare iyo maamulka Trumpna uu jiri doono maxkamadda sare si ku meel gaar ah ayuu uga hor istaagtay maamulka Trump marka ilaa iyo amar maxkamadeed uu soo baxayana ma masaafurin kartiin ayaa lagu yiri marka wayna arki doonaa arrintan waxyaabaha ka soo kordha iyadoo maamulka Trumpna uu doonayo isagoo leh dadkan waa gangis oo wadanka ayaan doonaynaa inaan ka bixino amaanka shacabka Mareykanka iyo amaanka qaranka ay qatar ku yihiin laakiin maxkamadda sarena waxay leedahay qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in garsoore immigration la horgeeyo kiiskiisana uu dhageysto marka iyadoo processkaasi la marin qof wadanka inta la qabto lagama masaafurin karo wayna arki doonaa sidoo kalena arrimahaas waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sadaa iyo nabadgelyo